وانكو سلامي صاحب إلهي وحو هديد إنوغو صدره بينا فهمين maadaama fikirkeenu kooban yahay aragtideenu ay xadidan tahay baraaruhu waxa uu inoogu yimaado hab balanbal u muuqdaa deeqduna hab diidmo u muuqataa niyad dhiskuna hab niyad jabin u muuqdaa mise marka fahamkaagu uu tooso ayaa si dhab u fahmaysaa in ilaahay xataa naftaada kaaga naxariis badnaa rabbiga samuuna aanu wax aan samahayn ku hogaaminayn cabdillaahi bin cabbaas ayaa ku yidhi ardaygiisa cadaa ibnu rabaax muktusaa gabadha lujannaha cadaaha ayaa uu ku yidhi cabdillaahi ayaa ku yidhi gabadhaas nebiga ayuu timid oo ku tidhi rasuulkii allow waan suuxoo dharka ayaa iga faydnaa ee ilaahay ii bari markaasuu nebigu sallallahu calayhi wasallam ku yidhi haddii aad doonto u samiro janno ku hel haddii aad doontana ilaahay waan kaaga bariyo inuu kaa shaafiyo markaasay ku tidhi iska daa waanu samrayaaye ee inaanay maryuhu iga faydmin inuu ilaahay ii bari markaasuu nebigu sallallahu calayhi wasallam uga duceeyey xanuunku waa mid ka mid ah hadiyadaha ilaahay uu ku imtixaamaya si uu kugu dhaafo dambiyo aanay adeecistaadu gaadhaynin heer uu kaaga dhaafo uu ku imtixaamaya si uu qalbigaaga u jiliyo oo qalbigaagu waxa u badan ee uu ku waayo arkaa marka uu xaalad taagdarro dareemo ee adduunkuna uu xaqiiqadiisa tuso hadduu dibqalooc yar yahay nafuu damqayaa isbixin waa kii hadraawi lahaa bal u fiirsa bilicda muuqaalkaasi uu leeyahay inuu ilaahay qalbigaaga kaaga hinaaso nabadina saaxiib